sida lagu sheegay warbixin cusub oo la xiriirta sida uu ku gaaro hubka maleeshiyaadka Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen. Ururo fadhigoodu yahay caalamka ayaa sheegay in hubka soo gaaro maleeshiyaadka Xuutiyiinta dalka Yemen kaas oo ka imaanaya Iiraan gebi ahaanba la soo marsiyo Soomaaliya. Sida lagu xusay warbixinta ayaa waxaa la qabtay markab la sheegay inuu gacanka Iiraan ka soo daabulay hub loo waday maleeshiyaadka Xuutiyiinta dalka Yemen. Waxaa arrintaasi laga soo xigtay koox ku howlan ka ganacsiga hubka sharci darrada oo fadhigoodu yahay Soomaaliya sida uu ku waramayo ururka caalamiga ah lagu magacaabo Global Knife. Bishii Janaayo ee sanadan 2020 markab lagu magacaabo Alberto ayaa ciidamada badda Sacuudiga ay qabteen waxaana lagu soo waramayaa inuu siday shixnad hub ah oo uu ka soo qaaday gacanka Iiraan kuna sii wajahnaa maleeshiyaadka Xuutiyiinta dalka Yemen. Baaritaanka ururka Global Knife uu ka sameeyay markabka Alberto ayaa waxaa lagu ogaaday in shabakadii ugu horeysay oo ku howlan ganacsiga hubka sharci darrada ah ee fadhigoodu yahay Soomaaliya ay ku lug leeyihiin hubka kala gudbintiisa Iiraan iyo maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen ayaa lagu yiri. Hay'adda warbixinta qortay ayaa sidoo kale waxay sheegtay in madaxda shabakada uu yahay qof wakiil u ah hubka u kala gudbisa xiriidhuna la leh ururka Al-Qaacida iyo kooxda la magac baxday dowladda Islaamka ee fadhigeedu yahay dalka Yemen. Sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay ama daabacayaasha ayaa waxa Global Knife ayaa sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in qorshaha markabka Alberto uu cadaan u yahay cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee saartay Iiraan iyo in la kordhiyo waqtiga cunaqabateynta si looga hortago Iiraan ay hub siiso maleeshiyaadka Xuutiyiinta dalka Yemen. Isku turturka dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa galay ku dhawaad 10 sano waxaana halkaasi ku nafwaayay kumanaan ruux halka malaayiin kalena ay ka barakaceen dagaaladaasi. Dagaalka Yemen ayaa waxaa ku lug leh wadamo badan oo caalamka ah waxaana dadka u dhashay dalkaasi ay ku dacdareysan yihiin guud ahaan caalamka iyo gudaha dalkaasi Yemen. Maleeshiyaadka Xuutiyiinta iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay ayaa sanadihii ugu dambeeyay ku hardamayay dalkaasi Yemen waxaana weli la gaarin natiijo kama dambaysa ama cid dhulka lagu dhifto balse dagaalka ayaa weli ka soconaya goobo badan oo kamid ah gudaha dalkaasi. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa kaalin mugle ka qaadanaya dagaalka iyagoona dowladda caalamku ay aqoonsan yahay ay ka taageerayaan dhanka cirka duqeymana ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha ay isleeyihiin way ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaadka Shiicadaha. Sidoo kale kooxda Shiicada Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta ayaa marar badan oo hore waxay gantaalo ay ku garaaceen dhul badan oo uu leeyahay xukuumadda Sacuudiga waxaana ugu dambeeyay dhuumo shidaal oo Sacuudiga uu leeyahay oo dhawaan ay bartilmaameysteen maleeshiyaadka Shiicada Xuutiyiinta dalkaasi Yemen. Isku soo wada duuba dagaalada ka socda dalkaasi Yemen ayaa u muuqda kuwa sii gelinaya mugdi waxaana dhawaan qaramada midoobay sheegtay in macluushii ugu darneed ay ka dhici karto dalka Yemen haddii uu sii socdo dagaalka aan dhamaadka lahayn.